guddigii hore madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro uu magacaabay xal u helidda kororkii ay shirkadaha isgaarsiinta ku sameeyeen adeegyada internetka iyo ku hadalka telefoonada bishii August ee sanadka 2025 ayaa maanta soo saaray go'aamo xal u arrintaas kadib markii ay kulamo kala duwan la yeesheen shirkadaha isgaarsiinta oo guddida u soo bandhigay waxyaabihii ku kalifay inay si wadajir u sameeyaan qiimo kordhintaasi oo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay si weyn uga hor yimaadeen isla markaasna markii dambe la hakiyay markii ay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland arrintaas kulan kala yeelatay shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta. Guddidan oo ka kooban 4 wasaaradood ku-xigeenka garyaqaanka guud ee qaranka iyo la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha ayaa sheegay in go'aankoodan ay u adeegsadeen dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka kala duwan ee dalku leeyahay iyadoo ay sheegeen uu dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland dhigayo inay reeban tahay macaamil kasta oo ganacsi oo dhibaato u keenaya bulshada Soomaaliland sidaas awgeedna aanay suurtagal ahayn in shirkadaha isgaarsiintu ay ku heshiiyaan in adeegyada ay bixiyaan ay si isku mid ah u kordhiyaan. Ugu horreyntii waa kan wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Soomaaliland Jamaal Maxamed Jaamac oo faahfaahinaya kulamadii kala gadisnaa ee guddidu ay la yeelatay mas'uuliyiinta shirkadaha isgaarsiinta. maanta oo bishu tahay 18 bisha 12 2025 guddiga halkan taagan oo madaxweynaha qaranka u saaray xal helidda arrintii ka dhalatay qiimayaashii ay shirkadaha isgaarsiinta ku kordhiyeen internetka. maanta waxay guddigu halkan ku soo jeedin doontaa go'aano sidaan hore ula soconnay 8 bishii August 2025 waxaa shirkadaha isgaarsiintu gaar ahaan shirkadaha Telesom, Salteco iyo Somtel ay ku kordhiyeen adeegyadooda isgaarsiinta qiimaha internetka ayay kordhiyeen hal maalin bay wada kordhiyeen. qiimo kororkaasna waxaa macaamiisha ama shacabka ayaa waxay ka keeneen cabasho aad u xooggan. isla maalinimada habeenkeedii waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu joojiyey ama uu hakiyey qiimo kororka ay shirkaduhu sameeyeen oo ku salaysnaa xaaladii maalinta taagneyd. 10 bishii 8 2025 waxaa madaxweynuhu magacaabay guddi ka kooban 4 wasiir garyaqaan ku-xigeenka oo halkan taagan iyo Dr. Bayle oo ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha madaxweynaha. wasiirada madaxweynuhu magacaabay waxay ka koobnaayeen wasiirka wasaaradda isgaarsiinta, wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo wasiirka ganacsiga iyo wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta. guddiga markii madaxweynuhu magacaabay waxay galeen hawshii loo igmaday oo ahayd inay arrintaa dib u eegaan xal ka soo gaadhaan. annagoo tixraacayna amarka iyo wareegtada madaxweynuhu soo saaray waxaan la kulannay shirkadaha isgaarsiinta oo shirar badan la yeelannay gaar ahaan shirkadaha Somtel, Telesom iyo Salteco. shirkadaha waxaan kala niqaashnay sababaha iyo waxay ku saleeyeen kororka adeegyada ay kordhiyeen gaar ahaan kuwa internetka. doodeer ka bacdi shirkaduhu waxay soo bandhigeen waxyaalihii ku kalifay inay kororkaas sameeyaan caqabadaha haysta duruufaha dalka ka taagan. sidoo kale guddigu iyadoo ilaalinaysa bulshada Soomaaliland sidoo kalena shuruucda iyo awaamiirta dalka lagu maamulana tixgelinaysa waxay shirkadaha la wadaageen dhammaan waxyaalaha waajibka ka dhigaya inay shirkaduhu aysan si isku mid ah ama xilli isku mid aysan u kordhin. sidoo kalena in shacabka iyo bulshada Soomaaliland la ilaasho oo iyadoo la tixgelinayo shuruucda dalka. arrintaasi muddo ayay soo jiitamaysay. waxay ugu dambeyntii guddigu soo saareen go'aamo iyadoo markaana ay la wadaageen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland go'aamadaasoo xal u noqonaya arrintii ka dhalatay kororka ay ku sameeyeen shirkaduhu adeegyada isgaarsiinta. geestiisana wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madarrada Soomaaliland Fuaad Axmed Nuux ayaa ku dhawaaqay go'aamada ka soo baxay guddida xukuumadda ee ka jawaabista xal u helidda kororka qiimaha adeegyada isgaarsiinta internetka iyagoo tixraacaya wareegtadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ee ku taariikhaysnay 10 bishii 8 2025. ujeedadeeduna ahayd magacaabista guddida xukuumadda ee ka jawaabista iyo xal u helidda cabashada qiimaha kororka adeegyada isgaarsiinta. guddidu waxay baaritaan ku samaysay qiimayaasha kordhay ee adeegyada isgaarsiinta internetka. sidoo kale waxay guddigu shirkadaha la yeesheen kulamo kala duwan waxayna shirkadaha kala hadleen baahiyaha keenay kororka qiimaha. waxay kaloo ka wada hadleen cabashada ka dhalatay ee dadweynuhu ay ka keeneen isbeddelka qiimaha lagu sameeyay. waxayna la wadaageen shirkadaha qodobada dastuurka ee la xidhiidha ganacsiga, xeerka isgaarsiinta, shuruucda iyo xeerarka caalamiga ee lagu maamulo korjoogtaynta ganacsiga iyo ilaalinta dadweynaha. qodobadaasoo dhammaantood ka hadlaya sida ay shirkaduhu kordhin karaan qiimayaasha adeegyada iyo ilaalinta macaamiilka ama consumer protectionka.
sidaa daraaddeed guddi waxay soo saareen qodobadan. kow, sida uu dhigayo dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobkiisa 14aad faqraddiisa 3aad iyo xeerka isgaarsiinta qaranka xeer nambar 50/2020 qodobkiisa 5aad faqraddiisa 3aad waxaa reeban macaamil kasta oo ganacsi oo dhibaato u keenaya bulshada somalilan, sida inay shirkadu ku heshiiyaan in qiimaha adeegyada ay bixinayaan ay ku kordhiyaan dadweynaha si isku mida xilli isku mida. 2, sida uu dhigayo dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobkiisa 11aad mabaadi'da ganacsigu oo mid ku dhisan suuqa xorta free market economy. qiimayaasha adeegyada iyo badeecaduhuna waa inay ku yimaadaan baahida iyo helitaanka demand and supply. shirkaduhuna waxaa u bannaan in isbeddelka qiimayaasha u sameeyaan si waafaqsan xeerarka dalka. 3, iyadoo laga duulayo baahiyaha sharciya ee la xidhiidha ilaalinta dadweynaha ee ganacsiga waxaa la go'aamiyey in hay-adaha dowladda ee ay khusaysaa degdeg u soo diyaariyaan xeerarka kale ah: 1, xeerka ilaalinta macaamiisha consumer protection law, xeerka ka hortagga monopoliga anti competition law. 4, iyadoo xukuumaddu gudanayso waajibaadka ka saaran ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta iyo ajaanibka ku nool waddanka, waxaa reeban fal kasta oo dhiirigelinaya in la waxyeeleeyo nafta iyo hantida. ciddii ku kacda falal noocaas ahna waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan. 5, haddii ay timaado cabasho ay qabaan muwaadiniinta jamhuuriyadda somalilan waxaa u bannaan in wixii cabasho ah ay u gudbiyaan hay-adaha dowladeed ee ay khusayso si nabada oo sharciga waafaqsan. allah mahadle xubnaha guddiga xukuumadda, wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska, wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada, wasiirka diinta iyo awqaafta, la taliyaha sare ee dhaqaalaha ee madaxweynaha, ku-xigeenka dariiqaanka guud ee qaranka. allah mahadle. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. cabdicasiis caydiid cilmi warbaahinta qaranka qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan hargeysa.